magacaygu waa Suhayb Cilmi Dhuxulo kana mid ah barayaasha jaamacadda Somali International University maadooyinka aan dhigo waa ku takhasusan tahay takhasuska markaas aan bartay oo ah cilmiga ganacsiga iyo dhaqaalaha kama macallin ahaan laga soo bilaabo 2013 oo ugu yaraan 5 sano experience ahaan aan ka mid ahay barayaasha dalka gaar ahaan jaamacadda SIU waxaan badanaa xooga saaraa barayaasha sababtoo ah waxaa i dhalay barahaasna oo ah aabahay Dr. Cilmi Dhuxulo asaa ka bartay in aqoontu in la gudbiyo muhiimta waxaana u egtahay inaan talaabto asaga qaaday inaan ku dabeesho aan ku daydo oo maadaama uu yahay role modelkii aan daba kacay mar walba aan higsanaya hamiga oo lahay mid la mid ah waxbarashadu waa aqoon qofka sareey ku baray kuwa amahday inaad amahdaasna u gudbisid dadka ka sii dambeey dadkaasna ka sii gudbiyaan dadka u sii dambeey ruuxantii macallimadu waa sida ardaynimadu kale waxbarashaduna ma lahan waa infinite ma lahan dhamaad ma lahan waxa ka faa'iideysa xataa inaad kobaca dhaqaalaha kobaca aqoonta isbeddelka dalka inaad uun qayb aad ka tahay oo meel uun inaad contribution ku sameey kartid sababtoo ah hal qof hada wax bartid waxay la mid tahay bulshadana waa bara ardaydan soo saarno in badan kamid ah xataa oo ka shaqeeyo isla jaamacadda oo shaqaalaha hoosaadka kulligood waa arday jaamacadda ka qalan jisay boqolkiiba 60-70 dhamaadkood most of them waa arday jaamacadda ka qalan jisay marmarka qaar xataa meelaha qaar hada tagtida oo businessyada qaar waxaad arkaysaa ardaygaadu meesha ka shaqeeyo bankiga kugu soo dhaweynayo soo markaas xataa aad waxay ku tahay niyad wanaag aad u weyn inaad aragtid ardaygaada ku soo dhaweynayo ustaad soo dhaweey ku dhaha soo fadhiisa meeshan marmarka qaar arday badan wax baraysa maybe xataa inaad la kurantid arday face ahaan xasuus laakiin magaciisa xataa inaad ka dhumaxata oo kugu soo dhaweeyay meesha